asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan khiyaarta soo dhawaada waa mar kale iyo barnaamij kale iyo kista t v maalinku waa arbaco waa 22 oktoobar 2025 barnaamijkeenan maanta insha allahu tacaala waxaan ku qaadaa dhigi doonaa heshiis dhex maray wadanka belize iyo dalka maraykanka oo ku saabsan arrimaha soo galootiga. dalka belize ayaa saxiixay heshiis muran dhaliyey oo ay la gashay dalka maraykanka si ay u noqoto baa la yidhi dal saddexaad oo amni ah oo lagu dejiyo muhaajiriinta doonaya magangelyada. heshiiskan ayaa laga yaabaa inuu bedelo socdaalka gobolka bartamaha America waxa uuna sababay jawaabo iskhilaafsan oo ka soo baxaya mucaaradka iyo dowladda Belize. Ra'iisul wasaaraha Belize John Antonio Priceno ayaa sheegay in heshiiska oo weli sugaya ansixinta aqalka sare uu u ogolaanayo muhaajiriinta laga soo masaafuriyo Maraykanka inay magangelyo ka codsan karaan dalka Belize halkii ay ku noqon lahaayeen dalalkoodii hooyo. Brigeno oo saxaafadda la hadlaya ayaa yidhi Belize ahaan tani waxa ay la mid tahay barnaamij shaqo halkaas oo dadka leh xirfado gaar ah ay iman karaan si ay uga qayb qaataan dhaqaalaha dalka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa heshiiska ku tilmaantay tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo tahriibka sharci darrada ah iyo xakamaynta si xun u adeegsiga nidaamka magangelyada ee dalka Maraykanka. heshiiskan ayaa la mid ah kii dhowaan lala galay dalka Paraguay waxa uuna qayb ka yahay dadaal ballaaran oo ay Maraykanka ku doonayo in uu dib ugu habeeyo socdaalka gobolka. sanadkan Panama, Costa Rica, El Salvador iyo Honduras ayaa sidoo kale aqbalay dad laga soo masaafuriyey dalka Maraykanka. hase yeeshee hay'adaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa ka digaya in heshiisyadan ay halis gelin karaan muhaajiriinta maadaama dalalka qaarkood aanay lahayn awood amni iyo mid dhaqaale oo ku filan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Belize ayaa sheegtay in heshiiska uu leeyahay tallaabooyin amni oo adag, awood buuxda oo lagu diidi karo ama lagu ogolaan karo dadka la soo wareejinayo iyo in uu xadidayo dalalka u qalmi kara inay helaan magangelyo ka helaan dalka Belize. dhanka kale hogaamiyaha mucaaradka Tracy Tega Panton ayaa sheegtay inay si weyn uga walaacsan tahay heshiiskan iyadoo ku tilmaantay inuu culays dhaqaale saarayo shacabka qatarna gelinayo madax bannaanida dalka Belize. Panton oo iyadana saxaafadda la hadlaysa ayaa tiri heshiiskani wuxuu si buuxda u bedeli karaa nidaamkeena socdaalka waxa uuna qatar ku noqon karaa amniga qaranka Belize. dowladda Maraykanka ayaa ku doodaysa in tallaabadani ay xoojinayso iskaashiga gobolka balse dadka ka soo horjeeda waxa ay sheegayaan inay ka dhigayso mid aad u adag in qoysaska halista ku jira ay helaan magangelyo ammaan ah. madaxweyne Donald Trump oo haatan ku jira xilkiisii labaad ayaa sii wada ololihiisa adag ee ka dhanka ahaa muhaajiriinta aan sharciyeysnayn ballanqaadkii ugu weynaa ee ololihiisa doorashada. bishii Juun maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa fasaxday in lagu celiyo muhaajiriinta dalal saddexaad iyada oo aan la siin fursad ay kaga doodaan ama isaga difaacaan khataraha ay ka wajahayaan dalalkaas kale. heshiiskan si buuxda looma shaacin balse dood adag ayaa durba ka dhalatay gudaha iyo dibadda Belize. dalka yar ee Belize ayaa hadda ku soo biiray dalalka sii kordhaya ee kala shaqeynaya Washington si loo qaabeeyo mustaqbalka socdaalka gobolka. haddii aad nagu cusub tahay subscribe to the channel haddii hore noola joogtay like and share the video waan ka mahadcelinayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.